Assalamu alaikum warahmatullahi and welcome back again. Today we are talking about pronoun with in English, Somali, Ethiopia. Waayahay maanta waxaan kala doonaa waxa magacyaalka isagoo English iyo isagoo Somali iyo isagoo Ethiopia. Sida ogsoonahay magacyaalada waxa loo isticmaalaa si waxa weeyaan meesha magaca ay istaagaan replace of noun ama stand of place of noun malena waxa ay istaagaan meeshii magaca maanta shaqadooda sheegi mayno laakiin waxa sheegnaa macnahooda af Soomaaliya iyo Ethiopia bes oramayno kan waxa weey wuxuu ka bedel yahay saas oo kale laakiin waxa isku day doonaa inaan ku sheegno waxa weey af Soomaaliya waxa weey Ethiopia marka way sida ogsoonahay waxa jira waxa weey seven pronoun baa jira todoba magacyada jira todobada waxa weeyaan inagu maanta lix baan ka isticmaalnaa meesha waxa ka maqan it baa ka maqan waddanka Ethiopia it ma isticmaalo inta badan lixdaas uma isticmaalaa marka inagu waxa weeyaan gudan leenahay barashada waxa weeyaan labada luqadood waayahay bala koobaad wax noqonaya ay wax loo isticmaalay qofka mutakallimka who is speaking Somali qofka hadlaya wuxuu leeyahay qofka isaga hadlaya wuxuu leeyahay I am teacher I am a student I am a nurse I am a doctor I am soldier qofka waxa iska hadlayo af Soomaaliya waxa waa aniga waa maxay waa aniga weey ama waa ani Ethiopia waxa maxay ani ibn onsa ani waaya kan labaad waa we waxa weeyaan qofka waxa weeyaan kooxdan ka aday kooxdaas uu kamid yahay bil leeyahay haddaan nahay waxa weeyaan umada ama groupka haddaan nahay waxaasan soo jeedinaa way afsana waa maxay waa annaga haddaan nahay kala siyaasa maanta waxaan cambaaraynaa hebel saas oo kale tawaxna waa maxay noti aad dhow qof waxa weeyaan Soomaali isku dhow yihiin noti bes noti way waxaan noqonaya you waxa leenahay marna waxaan isticmaalnaa singular marna plural laakiin maanta waxaan isticmaalnaa singular kaliya you waa maxay waa adigoo kaliya you waa maxay waa adiga waxay Ethiopia noqonaysaa ati way keenna waxa weeyaan afraad waa she oo loo isticmaalo waxa weeyaan female kinta badan waxaan leenahay maadaama loo isticmaalo female singular asoo wax noqonaysaa maxay waa iyada she waa maxay waa iyada Ethiopia noqonaysaa waxa ka noqonaysaa way he waxa weeyaan waxaan isticmaalnaa male waxaan isticmaalnaa labka oo singular weeyna he waa loo isticmaalo we use male way ayaan isticmaalnaa marka asoo wax noqonaysaa maxay isaga Ethiopia noqonaysaa isa waayahay dayna waa maxay laba qof wixii ka badan day waa iyaga waa maxay waa iyaga Ethiopia noqonaysaa isaan waxa weeye waxaan mudaa Soomaali waa waaska Soomaali wada waa Latini weeyaan Soomaaliga waxa weeyaan laba xarfaas waxa weeye laba xaraf ma ku doonay weeyaan inta kale waa isku sameeyay amiyana saahay aad ma santahay daawashada daawansay waxa la inta kulmayna 10 kiisa have a good day thank you for your watching